saaxiibayaal kulanti wanaagsan dhammaantiinba meel walba joogtaan. halkani waa janalka wararka ee Samakaab TV. xilli walbana waxaynu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay dalka gudihiisa ka dhacay akhbaaraadka kale ee ka qarsoon. taariikhdu waxay ku beegan tahay 28 bisha Sebtembar sanadka 2019. qodobada sida gaarka aan u eegi doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen awoodii ayuu ka qaaday xildhibaanada maamulkaasi kadib markii uu waqtigeedu dhamaaday. waxa uu ku amray marnaba inaysan isaga wax mooshin ah ka keeni doonin. waxaan eegi doonaa sababta awoodda looga qaaday xildhibaanadaas iyo kulan gaar ah oo la qaatay waxyaabaha uu kala hadlay. madaxweyne Farmaajo waxa uu xariga ka jaray dhismo cusub oo safaaradda Soomaaliya ee Washington ka iibsatay. markii uu horeysay muddo 30 sano ah ayay safaaradda Soomaaliya degaysaa dhul ay leedahay. madaxweynaha Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geeli war ayuu ka soo saaray loolanka kala dhaxeeya Kenya, waxaana uu sheegay in xiriirka sii xumaanaya labadaasi dal ay dalalka Afrika sabab u yihiin, iyo Mareykanka oo xayiraad ku soo rogay Soomaali uu ku jiro sheekh caan ah kadib markii looga shakiyay inay argagixisada xiriir la leeyihiin. hantidooda ayaa sidoo kale la xanibay. ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobadaas oo dhammaystiran. fadlan haddii aad janaalkeena ku cusub tahana subscribe noo saaro gambalelkana taabo in markasta aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena ay gaaraan. ugu horeyntiina haddiinu ku bilowna barnaamijkeena faaqadaada wararka. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed awoodii ayuu ka qaaday xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. amar cusub ayuuna duldhigay. xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu amray inaysan wax mooshin ah ka keeni karin xukuumadda Cabdicasiis Laftagareen. kulan uu la yeeshay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa hooyga uu ka degan yahay magaalada Baydhabo. waxa uu kulan kula yeeshay xildhibaanada maamulkaasi waxaana ku amray inay shaqadooda si ku meel gaar ah u sii wataan maadaama uu waqtigu ka dhamaaday. muddadaas ay xilka sii haysan doonaan ayaa lagu amray inaysan wax mooshin ah xukuumaddiisa ka keeni karin. xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed oo ka dhamaaday waqtigooda ama xilhayntooda ayaa muddooyinkii dambe waxa ay ku howlanayeen raadinta in loo sameeyo muddo kordhin, waxaana ololahaas ay ku raadinayeen muddo kordhinta hormuud ka ahay gudoomiyaha baarlamaankaasi Cabdiqaadir Shariif Sheekh Unamaye. xukuumadda Soomaaliya markii horeba meesha geysatay Laftagareen ayaa la sheegay inay ka soo horjeesatay in waqti kordhin loo sameeyo xildhibaanada maamulkaasi, sida warbaahintii u xaqiijiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada la kulmay madaxweyne Laftagareen. xildhibaanada ayaa waxa inoo xaqiijiyeen in markii hore ay dooranayeen Laftagareen ee xukuumadda u ballan qaaday in waqtigooda loo kordhin doono, balse ballantaas haatan u muuqata mid looga baxay. toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa madaxweyne Laftagareen waxa uu Baydhabo kula kulmayay loolan adagna uu kula jiray qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaankaasi, kuwaas oo doonaya in waqti kordhin loo sameeyo. sidoo kale waxaa jira dhinacyo kale oo doonaya in baarlamaan cusub la soo dhiso. kulamadaas oo uu la yeelanayay odayaasha dhaqanka beelaha dega Koonfur Galbeed ayaa looga arrinsanayay maamulka Koonfur Galbeed xildhibaanadiisa sida laga yeelayo, balse haatan waxay u muuqataa in xoogaa xaaladda la qaboojiyay. xildhibaanadan cusub muddada ay waqtiga sii hayn doonaan lama cadeynin, balse keliya waxaa lagu xiray inaysan xukuumadda wax loolan ah la geli karin. hagaag dhankaas iyo Mareykanka ayaa naadeenaaye. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xariga ka jaray dhismaha cusub oo ay iibsatay safaaradda Soomaaliya ee Washington. muddo 30 sano ah kadib ayayna degaysaa safaaradda Soomaaliya dhul ay leedahay. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabnimadii Jimcaha oo saacadu ay ku beegneed 4 PM ee saacadda Bariga Afrika waxa uu xariga ka jaray dhismaha cusub ee safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka. dhismahan oo ku yaala magaalada Washington ayaa waxaa iibsaday safaaradda Soomaaliya. markii horena waxaa deganay safaaradda Colombia ee Mareykanka, taas oo ka bedelatay. waxaa furitaanka dhismaha oo ku yaala bartamaha Washington DC xariga ka jaray madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka yimid magaalada New York, halkaas oo ka qayb galay shirka guud ee qaramada midoobay. madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay munaasabadda furitaanka ayaa sheegay inay ahamiyad u leedahay Soomaaliya inay safaaradda ugu dambeyn ay degantahay uu yahay guri ay Soomaaliya leedahay kadib 10 sano oo safaaraddu ay deganeed dhismo kira ah. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku booriyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka inay wada shaqayn dhow leeyihiin diblomaasiyiinta safaaradda, isagoona tilmaamay in dhismahaasi uu yahay hanti ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa muujiyay dadaalada ay dowladdu ku bixinayso soo celinta qabkii iyo sharafkii dadka Soomaaliyeed ee ku lahaayeen caalamka. haatanna la qorsheynayo si la mid ah tallaabadan oo kale inay dowladdu dhammaystirto dayactirka safaarado Soomaaliya ay dalalka caalamka ku leedahay, halka kuwa cusubna iibsanayso.
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kula dardaarmay diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee Washington inay si siman ugu shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed si dhowna ay uga warqabaan dadka Soomaaliyeed oo ay matalaan muhiimaduna ay tahay inay ilaaliyaan midnimadooda iyo wadajirkooda. waa markii ugu horeysay ee safaaradda Soomaaliya ee Washington ay degto dhismo ay Soomaaliya leedahay waxaana horey u deganeed guryo kira ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa la rumaysan yahay inay dadaal badan ugu jirto sidii dhowr dhismo oo Soomaaliya ku leedahay dalalka caalamka ay uga wareegi lahayd halka kuwa cusubna ay qorsheynayso inay soo iibsato. waa tahay dhankaas iyo Jabuuti ayaa naadeynaya madaxweynaha dalkaasi mudane Ismaaciil Cumar Geelle war ayuu ka soo saaray loolanka kala dhaxeeya dalka Kenya waxaanu eedeen kulul u jeediyay qaar ka mid ah dalalka Afrika oo uu sheegay inay sabab u yihiin colaadda labadaasi dal u dhaxaysa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka hadlay tartanka ay dowladdiisu kula jirto dowladda Kenya ee ku aadan kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in xiriirka aan wanaagsaneyn ee u dhaxeeya labada dowladeed uu haatan aad u sii xumaanaya xiriirkii labadaasi dal u dhaxeeyay kaas oo sabab ah kursigaas ay ku tartamayaan. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu cambaariyay qaar ka mid ah wadamada ka wada tirsan midowga Afrika kuwaas oo Kenya ugu codeeyay 21 bishii Agoosto inay ku guuleysato kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana uu sheegay inay sameeyeen arrin aanan wanaagsaneyn. Geelle ayaa sheegay in dowladda Jabuuti aysan ka tanaasuli doonin kursigaas ilaa iyo meesha ugu dambeysay ay ka gaarayso oo golaha ammaanka lagu kala baxayo codkooda. Jabuuti ayaana waxa ay garab ka helaysaa qaar ka mid ah wadamada waaweyn ee saldhigyada kule dalkeeda kuwaas oo ugu horeeyaan Mareykanka iyo Faransiiska. hadalkaas ayuu sheegay madaxweynaha dalka Jabuuti waraysi uu siiyay idaacadda VOA laanteeda afka Soomaaliga ku hadasha waxaana uu noqonayaa markii ugu horeysay uu ka hadlo khilaafka cad oo u dhaxeeya Kenya iyo Jabuuti kaas oo kursiga aan joogtada ahayn isku haystaan. hadalla kulkulul ayay siyaasiyiinta Jabuuti iyo Kenya hawada isku marsiiyeen taas oo u muuqata in xiriirka ka dhaxeeya labada dal ee diblomaasi ahaan uu hoos u sii dhacay. si kastaba haatee xaalka labada dal haatan maahan mid wanaagsan. ugu dambeyntiina saaxiibadeena qiimaha badan oo barnaamijkeena faaqidaada wararka waxaan ku soo afmeeraynaa dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay Soomaali oo ku jiro Sheekh Caan ah waxaana lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin ururada argagixisada ah. dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay dhowr qof oo Soomaali Kenyaan ah iyo qaar kale oo Soomaali ah sabab la xiriira inay taageersan yihiin kooxaha argagixisada ah ee Soomaali iyo Kenya ka dagaalama. waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in la wareegi doonto hantida dadkaas isla markaana sidoo kalena waxay muwaadiniinta Mareykanka ka mamnuucday inay xiriir maaliyadeed la sameeyaan shakhsiyaadkaasi. liiska dadkan la xayiray waxaa ku jira Sheekha caanka ah ee lagu magacaabo Sheekh Xasan Xuseen Aadan waxaa sidoo kale ka mid ah Sheekh Xasan Cumar, Xasan Mahdi Cumar iyo Xasan Mahad oo dhammaantood Soomaali Kenyaan ah. waxaa sidoo kale liiskaas ku jira ninka lagu magacaabo Cabdifataax Abuukar Cabdi oo loo yaqaan muhaajirka Muusa oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degan Mombasa. dhammaan hantida dadkan ay leeyihiin ayaa Mareykanka uu sheegay inuu la wareegi doono hadiiba ay jirto hadii kalena waa la xanibayaa. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale liiska madow ku dartay hay'adda Al-Xarameyn ee fadhigeedu uu yahay magaalada Garissa ee ismaamulka Soomaalida Kenya. waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa bishii Abriil xayiraad saartay Xaliime Aadan Cali oo Soomaali Kenyaan ah kadib markii lagu eedeeyay inay $150,000 ay u dirtay dagaalamayaasha Daacish ee ka dagaalama dalalka Liibiya, Syria iyo bartamaha Afrika iyadoona marsiinaysa hanaanka xawaaladaha. dowladda Mareykanka ayaa markasta si gaar ah isha ugu haysa shakhsiyaadka ku sugan dalalka caalamka ee xiriirka wanaagsan la leh ururada argagixisada kuwaas oo dhanka maaliyadda ka taageera. guud ahaan saaxiibadeena qiimaha badan oo barnaamijkeena faaqidaada wararka intaas ayaan ku soo afmeeraynaa. fadlan waxaan ka codsanaynaa haddii aad channelkeena ku cusub tahay inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad taabato si markasta aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan. fadlan muuqaalkana saaxiibadaada kale la sii wadaag si ay u sii daawadaan. nabadgelyo ammaano aan la daawado meel kastoo aad dunida kaga sugan tahay.